بسم الله الرحمن الرحيم. إنجنير أحمد إبراهيم horta aad baad umahadsan tahay waraysiga gaarka aad naga aqbashay. Axmedow muddo imika 2 sano mise sanad jirtay meesha 3 sano yaa mariyaha wakaalada hamaha shidaalka ee Berbera. Laakiin waraysigeena waxa horta aan ku bilaabay horta Injineer Axmed horta waa kuma way dad taariikhda lagu hayaa horta aad baan salaamaya kuwa adiga kuwa mas'uuliyiin waraysiga waxa inta badan baa shaqaalka dhexjira si fiican u dhexjira farxad bay tahay iyo inaan waanta adiga kula kulmo aniga qolada farxad weyn bay tahay aad baan u mahadsantahay inaan soo jiibtay noo timid oo aad baan u farxsanahay danka hore Axmed Ibrahim muxuu ahaa waa kan dhalinyarada kan dhalinyarada aniga waxa ka baxay dugsiga sare Farxamar oo ka wareeyay ahaa haddii ugu horeysay iskuulka ka baxay markii la dhisay الله يسلمك كل حاجه waxaan kalaas beeyahay Ibrahim Kodbur Jaisi kalaas beeyahay Xuseen Caydiin wasiirka kalaas beeyahay Qamariye kalaas beeyahay rag badan baa jooga meesha Xasan Axmed kalaas beeyahay Axmed Xasan Caro kalaas beeyahay marka dheeraha ka saaray marka nasiib ayada ma sha Allah iska diriyo ka baxay marka وأنا حمرت الحمد لله تيجي برجع ياسينو حاضر شغلت كشيء بس يقولك فرصة صعبة كانت كهلا وبيجري محمد كاتي برجع محوها أكوكي أفويني توتي فرصة توتي فرصة في عكلا والله هذا هلا شغلت كهلا والله قلتنا لكن يا نودي أبسط قلت أنا نودي مكان أنا قوم مكان كسب حريم محوها سكولدي وأولي محوها هذا عندي أرجوين يعني فرصة هلا إنه شغلين هلا وكان راح شغل كهلا محوها بعد يقرأ كلام شري oo markii la wareegay mutaadihii muxuu ahaa jiniga ahaa oo bacdo jiray istanbul del stato oo faras dagaalada wareegay Talyaaniga yaano la tirada xalaga dhigay ya ana la tirada madax ka noqday meesha ilaa iyo 40 shaqaale xukumayay marka ka soo bilaabay nolosha ka bacdi muxuu ahaa badbacdi baan in badan ma joogay ka bacdi muxuu ahaa waxa dhacay muxuu ahaa 7 waxa dhacay horba wixii yar dhaqaaq yar ay reeqooyiga lagu muxuu ahaa 77 markii laga soo bilaabay dhaqaaq yar ay reeqooyiga hal yar farbadana muxuu ahaa reeqooya special waliba dadkeena muxuu ahaa Soomaaliland ayaa marka culays badan la saaray waxa noqday nasiib daro dadkii ugu horeeyay shaqada laga yariyo ayaa noqday marka nasiib baa iyo soo daadana maanta joogina Ilaahay fursad kale siiyay waxaan u dhoofay Imaaraadka waxaan tagay 7 يعني مرات عرفتي نسي وراك كان شقة في عمان كيالي هم شقة يجري شركة يقولين بتروح سو صارتها الله يرعتكو أنا يرير بدنا محو عرير جيسا أو رئيس مايل يا فرصة بدنا لو شاس بروح هلاي وتي وحنو آدي هذا وجولي سنة محوها دت كانوا سير بس غير قانتا محوها عرير يمنتي رئيس أفريقيا سودانتي وتي بيك استولا قلبا إنما شغلة سبب بهليش أنا بقولش آدي أنا قم بهليش هنا نسيب وراي مشترك بترول كوردان وحكي شغل شغل غير بدنا رئيس مايلان وحكي مثلا بقصاتي وكل وزير محوها جلاسي شغل شني حسن عسلام كل شغل شني إلى يسوع إيربورت يعني واحد من اللي يرفع وضع يعني تالنت ما الله إنه نسيب وراي إمبارح كنا ميرش عملك قاعدين ما كانوا حكي شيء غير برشيسك يو بريكورمنت كا هذا ما ضحك نقول هذا لا ما كان محوها waxaan ka tagay meesha afar saddex sagaashaki yaa hadana fursad kale kale waxaan sii dhaxar waxaan sii muxuu ahaa meeshan kulay xiligi la hayaamayo marka yarka inta fasaxo tagay reerka inta fasaxo tagay Sweden ay jeclaadeen ka bacdi anaba ka daba tagay afar sagaashaki daba tagay ilaa kan Sweden ma ku noolahay inta waxa wadanka joogay saddex sanadood joogay iyo 6 bilood hore wadanka joogay nasiib wanaag مصبح مدحوينينا وحوي مقعاوي حيل كم مقعاوي وهودي ما تعرف كيسان عن جوجو واسدة تاريخ واي شنو أحمد ألبض ما صنت هاي هما هذا مدة 6 سنوات جوتي 6 سنوات maalintii xilka lagu tiriyay iyo maanta oo 3 sano ka soo wareegtay farq inta leeg baa u dhaxeeya maxaad ka qabatay haba wallahi yaasiino farq weyn baa u dhaxeeya فرق وين بقول حياة ليش هو حرق دسي ياسينو لبيه كنت كيسان فرق يسكو شيء 1950 بعد دسي تانجي يقول إنجليز ولا شال بي بعد دسي يتوه حكوا تيستو التنادي أو خوش كدسي بعد دسي تنادي حكتو عشان تانجي بريكو دسي أنت وحكي دم بيه ياسينو حقيقة مشروع وضرت وصبرت المشى دولار كا وحتى قلب كلوس بيه بعصونها أسبس صار الدمي
وين تاني شو وصل نفسي وين كنت شغالي قريان ودسي شغاليه قريان ودسي بدل كل ما تقبل حدا كل نوريين اي سي بحيسان ما كل علام بحيسان يعني هو هرت تاوا ku guuleysay ma sha Allah shaqaalaha almost 70 waxa dhex degayiin xarada degayiin ninkasta guriga ku jira iyo meel saxdo haysta oo bilaasha oo nafsi bilaasha ay AC bilaasha iyo haysta taas horta waa taxaga shaqaalaha u sameeyay xaga u soo eego muxuu xaga farsamada nasiib wanaag waxaan fursad u helay inaan helo shirkad caalamiya يعني نصيب ويا أنا قاعد ما تمشي شوقه شريد عالم قاعد واحد صوت سمعت واحد سمعي يعني هرمرك ما تلقى قاعد إني نص أركتين وضرت تهجيل عصبة وضرتين أفر تهجيل وأول بيتي ما شاء الله حارتين دول قلبك صفر ما تسوى أركتين تيبا يا هوها يا أركسان مركب واحد والسمية واحد أركسان معها يعني واحد يلا ما ورا كراه واحد مراكلة واحد هاي كينوي يعني وإلهي يقول هول بدين شوفي بدن فرصة محافوسة محب ما نقالة iyo shaqaabuuraad samaysay iyo hawshii oo kobcisay ayaad ku qabatay sicid kale ka caawisay cidna ka caawisay ma jirto cidna ka caawisay ma jirto aniga fasal markaan helay waxaan ku dadaalay inuu ficilno horta shaqaalaha gaxoon train ma siin ma tan ninka shaqaalaha haduu dabdhaco uu ka qayb galaya haduu shaqo kale loo baahdo uu ka qayb galaya waxaan sameyn casri ah team work dadku inay wada shaqeeyaan ma tan ninka operation manager-kii haddii aanu baahdo team manager-ka uu caawin karaya waa sameeyay ninku inaan shaqo wada ku koobnaan ay ka shaqeeyaan meeshii looga baxdo dhanba marka runtii yani waxaad arkaysaa yani ma yani sir u deeray horta ilaahay baa nala qabtay waxaan ilaahay baa nala qabtay runtii loo fududeeyay ma sha Allah alxamdulillah rabbil alamin laakiin team work ahaan iyo qoladan ka shaqeynta Trafigura iyo nimankan imka hayse Kanatic dhamaantayo waxaan naga go'an in dalka Soomaaliland uu noqdo terminalka BOT uu noqdo terminal international waanu gaadhay imka alxamdulillah waxaan oo haray فريتانكي مدحونا عصو فريا مدحونا عبد الرحمن فريا هديه بيدمو مسوي دونا وي انجنير احمد افرتا هامود ايمكا انت جوجتي اد كسو كردسي horta ilaa dawladiisii aad barax xulug ma darin xulug ma darin wixii ruushku dhisay iyo wixii ingiriisku dhisay iyo wixii mareykanku dhisay waa sidii ugu dambeeyay ayaa meesha yaalay sidii ugu dambeeyay waxaad ku guuleystay inaad afarta haamood oo kabaasigood yahay labay afarta labalaabkeed absolutely inta hore way u dhigmaan saddexda wadan ay sameeyeen way u dhabay ha afarta taagi tayada haamahaas ka war tayada haamo waa international weeyaan yaasiino waxa weeyaan waxa laga shaqeeyay intuu qaadatay aragtay taangaasi oo 200 sano dambe oo weeyaan uu shaqeynaya uma baahna reserve wixii waxa weeyaan waa automatic wixii isbarka yar dusha nadaafada mooyaane wuxuu baahan ma jirto marka jet fuelkii iyo naafta iyo petrolkiiba ilaahay waa naga iltiray way ahmed inta joogtay shirkado badan oo bareefada oo haama samaystay ayaa jireen saameyn inta laga ku yeelatay wakaaladda haamaha dawladdu leedahay shirkadaas runtii horta nasiib wanaag horta suuqa Soomaaliya waxa ku fiicantay dhaqaaliga waa xora waxaan leenahay dhaqaale xor aan leenahay ninka wax keeni karo marka horta waxa jirta muxuu ahaa suuqii shidaalku wuxuu noqday ee Soomaaliland suuq ballaaran uu noqday suuq ballaaran ku noqday marka aktarada ma imanaya teeda kale waxaan ku haweenay mustaqbalka hadii beedmo in waraabino muxuu ahaa Ethiopia oo data soo milyan ah oo samaysanaya Ethiopia loo samaysanaya ma nasiib wanaag shirkadu ma soo kulmay imka dahabshiil oo kale ma sha Allah meel saabu maraya waxa furaya muxuu ahaa Omar baa furaya dhawaan hadii beedmo waxa furaya Maxamed Saciid baa furaya waxa furaya muxuu ahaa Telisan baa furaya marka waxa weeyaan dawa wax inoo soo hoyday weeyaan laakiin waxa imanaya dadku badanayaayo كل قيمه dadka ugu jabaya way ma ku tirtiimaado dawal waa shay wala kala shaqaysanaya marka laakiin BOT mustaqbalka hadii ay beedmo waxaan ku rajaynahay dawladdu inay keento shidaalkayga imika waxa naga go'an waxaan sameeyay imika sharci waxa sameeyay xeerkii oo kala sameeyay xeerku ma ilahaan jirin xeer muxuu ahaa lagu dhaqo BOT ma ilahaan jirin بريتو لو geynaya madaxweyne Cabdiraxmaan Barito loo geynaya waa idiyar barabala sare madaxweynaha waa loo geynaya muxuu ahaa xeerka waxa ku dhan sharcigi shidaalka iyo badbaadintiisii ilaalintiisii wixii ma ku dhan marka waxa doonayna BOT inay xakunto sharcigaas oo dhan oo ay hoos yimaadaan petrolka sababtoo mid baa jirta ayaasi aan ku sheego imika wadankeena dawaa badii wada arkaysaa waxba ka saadhici kara reersiga dagaal baa ka dhaca Suez ka xidhib karta marka waxa ku ku guuleysteen maanta ku faanay waxa weeye waxaan sameeyay waxa la strategy petrolkeena ma kala kala shidaalka sharciga petrolka dhawaan ka reebnaa waxaan ka reebnaa kaydkii qaranka yaanu ka reebnaa marka ma siino ilaa ay soo bixiyaan mooyaane hadii shir waxa loo buuxaa naga kayd baan weeyaan ma samaxal haday wax dhacaan wadankii aanu noqon muxuu ahaa wadan aan dal lugeyn niisba gaargiisa wato taas waa gulbay noqotay taasna way injineer Axmed sanadahan ugu dambeeyay muddada joogtay waxa si weyn loo hadalay shirkadda la yiraahdo Trafigura mar waxa la yiri haamaha iyada ay noorsiisa hadna imika waxa jirtay Facebooka in qaranku leeyahay oo aad muddada joogtay hawshaad ka shaqaysay
الشركة ده سيدنا وصو قشي يشغل محايد ترافور شركة عالمية ولا قال لي هي ودك سويسرلاند واي ترافور waxa weeyaan shirkad weyn suuq ku leh Latin America Europe iyo Africa ba nasiibana shirkadu waxay u soo gashay contact la sameeyay waayo sharaag waxa weeyaan waa business waxa raasina kala meeshay waxa keenay ordina yada waxa gashanaysaa shilka waxa gashanaysaa meel aad ku hubto in dhaqaalaha soo galiyo waxay ogaadeen Soomaaliya inay tahay wadan kobcaya waxa tagay soo daad ku sheego wadanka Soomaaliya Soomaaliya maanta dhaqaalihiisa dadka ay sheekeeyo bigi dawladii siyaad bare waxa la keenin jiray wadanka $250,000 ee la keenin jiray min muxuu ahaa lascaalood ilaa iyo loo yacdo $250 maanta $250,000 ina kale muxuu ahaa sariflaha ayaa haysta wadanka taas u dhaqaalihiisa u kacay wadanka la keenin jiray $250 bishii la ismaan jiray bishii maanta ina kale ma haysta marka waxa uu taa dhaqaalihiina inuu xor noqday dadkii lacag helay ma sha Allah ilaahay bay noo keenay bagi xayna ma siiyo bagi adduunka xayna ma siiyo waxbayna ma hayso hadana laakiin wadankii waxa yaala dhaqaale ma sha Allah marka sharaga waxa arkayaan meesha investment ay ka helayaan lacagtii gashay ku soo ceshanayaan marka lacag fiican bay gasheen muxuu ahaa Trafigura waa risk bay sameeyeen way wadan traf line wadan bank line ila agtooda gashadeen bas waan ku guuleysteen wada maanta investment inaga bilankeeda way waanu bixin lacagtii already waanu bilan lacagtii leenasi ay gashaday wadakooda waanu bilan already waanu siinaa marka insha Allah muddadii ay filayeen dheereed way ka soo gabanaysaa marka already Facebook bayna gelisay annaguna waanu bilan dib u celina lacagtoodii marka nasiibana yani waxa dadii waqti badan mashaakilka xabar ay soo kala aragtay waxba la amaahinaya weli ma soo celinayaan sharaga ka yaacayaan laakiin annagu already markaan aragnay in waxa u soo baxaya isla markaa waxaan sameeyay waxoodii horta si qaranka uu noqoto hay'ad qaran oo wadanku leeyahay waxoodii naga siiya ma sidaas interest-kii badnaay markaan saarmi lahaa oo naga yaraanaya wayaan jiray Axmed aad baad u maasan tahay waynu soo gagabsanaa dhowr su'aalood inoo haray dadku intaa waa gacanta la iskiliyaa waxa la jiray Axmed in furfuran ma oo bulshada ba dhex galo kala waxa la yiraahdaa xagga siyaasadana xisbiyada isku mudibino wuxuu isku arkaa shaqaale dawladeed oo shaqaale adeega ummadeeda si wuxuu jiraa horta yaasiina waa runta horta aanu nin qurba joogan badan ahaa ma horta dhaqankani waxa yarkay dawladda waxa ku soo aabnay dhaqan yar adag oo muxuu ahaa Israel Soodweera aan beel isku sheegayn yani wax kasta muxuu ahaa caadi yihiin marka halkan ka timaad waxa weeye muxuu ahaa qofkii waxa leedahay kajarka la soconayso marka runtii waa taa waa lagu yiraahdaa laakiin horta nin furma ma aragtay nin furma baan ahay laakiin midna uu soo dhax galay furma baan dawladda kale laga joogo hal waan xidhan baa haysta runtii laakiin waan xidhnay laakiin sidoo xaway shaqada ugu badan shaqada aad ugu badan meesha tirnaka habeenimo maalin baa jooga marka time aan meel kale ku tagaaba ma jirto marka waxa isla baash hawshan uun iska dejiyaa waa madaxa xidhay laakiin dadka waa jeclay reebra waa jeclay wadada aad u wanaagsan runtii meesha kale ugu soo dhaweeyaan runtii waa aad baan u qiimeeyaa reebra yani si aad iyo aad u qiimo badan ay hayaan qiimo badan ma hayaan way Axmed wad maasan tahay dhawaan buuq baa yar dhashay markii xukuumadda cusub lagu dhawaaqay shaqaalaha hay'adaha kale ma hay'ado badan ba shaqaaluhu cabasho muujiyeen cabashada shaqaalaha ma daweysan mise wali way taagantii runtii horta cabasho si qalad u sameeyay shaqaaluhu waxay marka xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan waajib muxuu ahaa waxay doonayaan waa qasab inay ka hadlaan way sheegtaan laakiin waa direct toosan maraan marka wax laga hadlayo farsamo mawduuc laga hadlayo imka maanta kastoo salaasa albaabka waxa uu furay shaqaaluhu furan yahay inuu ninkasta sheegto wuxuu doonayo waa xaq ku xilina intii maanta dhaweyto waa arkaysaa marka la kala bedelay wax qaar baa soo ka faa'iideysta oo waa ka faa'iideysi oo marka ay soo malaan inuu uu tagaya ma joogayo yani taasoo kala oranaya taasina ma aha booreen waxa deynay soo mar waxa anaga la soo tashan la soo marin ayaa lagu dhaqaaqay taasina runtii wax aad u farxan bay ahayd sida kale shaqaale marka xdoonayaan dawaan dadka waa hadashaan isla timaadaan muxuu ahaa discussion samaysaa wixii la sameeyay damashadu waxa si qosay waxa ila bonus waxa ay burger waxasho muxuu ahaa yaa la siin jiray burger hore laakiin sharciga cusub ma saamaxayo laakiin yani marka dhaqaalaha hayso rabaxda faa'iido keento shaqaale wad ka farxisaa soma marka laakiin nasiib daro ma yahay sidii hore maanaan hayso deemka dhaqaalaha wad ogtahay aad buu hooseeyaa way hamu muxuu ahaa suuqeygii aad ma farfurna oo tamay baa laga shaqeynaya inta lagu shaqaa way yartahay ama gib wax lagu wadaa renovation baa lagu wadaa wada saakay marka waxa shaqada waxa way bonuska doonaya kale iyo waxa inaan ka wada hadalahay oo deemka waxaan galay imka hay'adda shaqada dowladda ka mid ah marka hay'ad waxaan iskeedu madax banaan أنا اسمه مالين ما كان شغالة واحد حكومة محوها هذه شغالة واحد تروح على بحكر أبا المرين لبل عيدود عيد عرفه عيد محوها الفجر ده قالوا هذا ما نصيرنا تنا ما تيجي تما كده أركي حولي أركي سوي حصة على كنت وانا بحني
أنا بحني محوها بونس كانوا بحني لكن حرجينا يا هذا إيه بيدمو إن تدخل إن النظام دول النمر ولا صعبة وهذين هذا مشرين ده وحين مصاري يسوا وده الحق ولا شيء ده ما ممكن يهيدينا احترامته وأساس وين لكن واحد يقول لي بعطيه ما يشرين وين شنو أحمد أبد ما صنت ورسياد نسيسي أدبر كمان الله يعزك أدبر ما سياسين أدبر قدرين أدبر